kusoo koobi karin annagu dhalinyarada Soomaaliyeed haddaanu nahay magaca Soomaaliyeed state waan ka tagay waxaanu nahay maaragtay dad aayo u baahan dad dhibaato badan soo gaadhay dhaqankoodii aanan haysan waxaan nahay dad diintoodii ku I'm sorry diinteena ka hadlo wabadi arkaysan badde wal madax qaawan waan ogaynaa qalad tahay laakiin waa saamayntii dagaalka ya waa saamayntii dagaalka dadka qaar inaysan afkooda aqoonin waa saamayntii dagaalka taariikhda waddankaygina aan aqoonin waa saamaynta dagaalka wadamo islaameed sida Kenya lagu gumaysto sidaan ku dhaqmi lahayn loo sheegaa waa saamaynta dagaalka ilaahay wuxuu inoo sameeyay siyaasaddu way kala baxdaa waa maqaadir ilaahay waxaynu nahay nation state waxaynu baryaynaa ma luqad baynu wadaagnaa taariikh baynu wadaagnaa dad iyo dhiig iyo walaaltinimo wadaagnaa af baynu wadaagnaa wax walbaynu wadaagnaa dhulna waynu wadaagnaa meel ku kala harimayno marka hadii shisheeyihii aynu sharta iska erinay wixii uu inoo sii jeexjeexayn wali maanta ku socono waa nasiibada laakiin de horumar hadii laga helayo haatan welcome hadii 20 sano aanu joognay bilaa maxaan ku dhadaa qaran 20 sano aanu joogay anigu 6 jir man Soomaaliya uga tagay nolosheeda Soomaaliya 3 goor man ku noqday 20 ka sano ee maxaan ku dhadaa isheeg kale ee dagaalku socdaan waxaan ku noolaa Switzerland Italy waxa dhaqankayga sidii aan u baran lahaa uma baran luqadayda sidii aan u baran lahaa uma baran waayo odayaa isdiray fursadina waan waayay ana diintii ka hadlay Soomaali لا لكن ده قاعد نفكر يا أحمد مغلوب فاد ما تنتهين مركز دليل روحي وكلا بحبا قار بدي محن كلا لقاتو ليبيا ودد إذا مرينا ودوتين حالة جودة كم نام باكوسيد انت سحرة كم نام بمركز يمادن يوغسلن نور بدير كوه لسان ayno dhalinyarada halkan joogta markii qurba joogta ay soo noqotay uga sheekaysan faa'iido darrada qurba joogta inay moodaan inay xaasidna laakiin waa reality xaasidnimo ma runta inuu sheegay dhalinyaro badan oo hankacay oo mooday $100 dibadda laga soo diray cunaha la iska soo qabtay gaajo maxaan ku dhaday digsigii la soo kontrol la soo diray dad moodaysan inaan nolol ku haysano been bad naftiina u sheegteen boqolaal baa wadada idinkaga horeeyay ku dhintay saxarihii ku dhintay badihii Yurub markay tagana sharci waayay meel lagu qoqoobay wadanka diganahay waxa weeyaan wadan federaal dadka waxa lagu yaani wadamada kale sida Ingiriiska kale qofku meesha doono kaga noolaan laakiin Switzerland marka timaado kale waxa weeyaan gobolada loo soo bandhigaya case-kaaga horta ugu horreyn hebel baa yimi wadankaas uu ka dhashay midabkiisu waa caynkaas taariikhdaas uu sheegtay yaa qaadanaya 26 gobol baan ka koobanahay 26 ka gobol marka maalin baa case-kaagi loo geynaya 26 ka marka mid qoranaya okay boom qoftugan ugu yeeray boom kana kii markay mid ku qaataan gobolada way kala fiican yihiin suuqii jareemo ma wada aha qaar baa buurale ah qofka maxaan ku dhadaa loo qorayoonkii 10 farin inuu cuno qaar baa bukad mani aan la siin cuntada loo kariyaa maxaan ku dhadaa ay ku doontaan waa 2011 waxaan ka sheekeynay waan wax dhaba waxa dhaca haddaad mudaan yurudin idin hayso wadankii 20 sano waxa maxaan ku dhadaa dhalinyarada wadanka joogtaan iyagu bilaa tacliinay odayaashii isdilay haday moodeen faa'iido keenan de al-shabaab bay keenan وكاود وهابي سمك المري دين الرسم كهذا معي حكيت كان هذا خلده يفهمين ودك تقولي هيس أنا هذا ما لبست واحد قلتوه مركب حويان